Anansi iyo xikmad. Maanta qisadaynu waxay ku saabsan tahay anansi iyo xikmad. Intaan muuqaalka guda gelin waxaan ka codsanayaa haddaad ku cusub tahay inaad subscribe aad saarto, videogan aad like saarto, aad sii share garayso, aad la wadaagto asxaabtaada. Aad baad u mahadsan tahay. Waagii hore dadku waxba ma aynan aqoon sida mira loo beero ama sida dhar loo sameeyo ama sida bir qalab looga sameeyo. Ilaahay cirka kore Yami ayaa lahaa xikmad adduunka oo idil, waxa uuna ku kaydiyay dheri dhoobo ah. Maalin maalmaha ka mid ah, Yami waxa uu go'aansaday in uu dherigii xikmadaha siiyo Anansi. Mar walba waxa uu Anansi eego gudaha dheriga dhoobada ah, waxa uu bartaa wax cusub. Waxa ayna ahayd arrin aad u xiiso badan. Damci Anansi waxa uu ku fikiray waa in aan ku xafidaa dheriga dusha geedka dheer si aan dhammaan keligii u haysto. Waxa uu soo hay xarigii dheer dheriga dhoobada ayuu ku wareejiyay, dhexda ayuuna ka soo xirtay. Wuxuuna bilaabay in uu geedka fuulo, laakiin aad ayay ugu adkeyd fuulida geedka, ayadoo dheriga ka garaacaya jilbaha mar walba. Intaa oo dhan Anansi wiilkii yaraa ayaa taagnaa geedka hoostiisa oo daawanayay. Wuxuu yiri ma aysan sahlanayn lahayd in aad fuusho haddii aad dheriga dhabarka ku xirto. Anansi waxa uu isku dayay xirashada dheriga dhoobada ahaa oo xikmadaha ka buuxo dhabarkiisa, waxayna dhab ahaantii ahayd mid in badan fudud. Waqti yar baa wuxuu gaaray geed dushiisa, laakiin markiiba uu istaagay. Waxa uuna ku fikiray aniga uun bay ahayd midka haysto xikmada oo dhan, haddana meeshan wiilkayga ayaa iga xirfadsan. Aniga Anansi aad buu u carooday. Dherigii dhoobada ayuu geedkii ka soo tuuray, dhulka ayuuna jajab ugu burburay. Xikmadii way xorowday. Si qof waliba qayb uga helo. Waana sababta ay hadda dadku u barteen sida loo beerto, sida dhar loo tasho, qalab looga samaysto birta, iyo wax walba oo kale oo dadku ay hadda yaqaanaan sida loo sameeyo.